بسم الله الرحمن الرحيم ولي waxaynu dhexda kaga jiraa cajaladii aynu diyaarinay in ay arkaan bulshaweynta reer Soolsanaag iyo Hawd ee ku dhaqan dunida daafaheeda haatanna waxa hortiina fadhiya sida aad aragtaanba Garaad Sareebaan Garaad Maxamed oo isagu aan haatan rabno bal inaanu qaybta isimada warbixin ay naga siiyo ama aynu waraysi la yeelanaba si aynu u ogaano bal xaaladda isimada ay ku sugan yihiin gobolka iyo سؤال دور أو كلامه وكان محمد سامع أو ينوسي داد هي. والله فيصل كانت سؤال شو بقول إنسان كودينا واحد تاي وحى محاك صوب هاي شركة أرسلي ليه لتين قلني كتمت سماري الآن. شركة هذا الواحد صوب هاي حيث الدوار والشرني مركا وأنا كوشر نمان البحث وأنا كوشر هذا الأجنبي يقول كي من الجميع marka goortii danihii iyo dadka danihiisa iyo aduu marxaladaha lagu jiro iyo wixii dadka u danaanu isla eegnay aad iyo aad baan u saaftaranay taas waa taa ma nuxna wajirta waxa isku afkarteen garan aduu dadku siyaasadu ku kala jiraado inaan aad iyo aad u faahfaahiyo ma jecli laakiin yaanu saaf garanay oo odayaal iyo wiilashooda aan noqonay baan u sheegi karaa waxaan ugu maqaalaa kale in la xiriireen ama aan dariiqa telefoon kula xiriireen ay ka jirto siyaasadda Geesa waxa uu aan arada horta burbur waa ka dhacay sidii sana dhulbaanta ilaa ugu talagalin baan u maraynayaa inay taladu sumid noqoto wuxuu ku soo astaajiyay ilaa odayaashii hore oo nima sheekooyin kasta leeyahay ka hayeen way ku sinay halno way lahaayeen laakiin taladu ma midaysnayn marka taa waxa uu sababay waa mar dhulka burbur baa ka dhacay ay badanna way timi dalka laftiisu kala si waa waagi dawladuhu joogeen Soomaaliland waxa la isku oran jiray xalal dhulbaantay iyo xalal wasagil iyo xalal isaaq Soomaaliland luka saartay la isku oran jiray waagi Ingiriis xukumi jiray saasa la isku oran jiray marwada Soomaaliland taa maasheen hadda ma soo bixin horay u jirtay aduu hadal waa una halka laga tiraacaya marka laga yimaado tan kale oo buugana dadkii markuu googo'ay oo qabiil noqday maartay qabiil ahaan buugana lagu dhisay taasoo saas ku soo baxday tan kale oo artana inta la yiri dadkii soo dawladu baahday oo maamulaha yaryar oo jira mooyaane dawladda baahday oo la yiri dawladda Soomaaliya la dhisaya artana la tagay in dawladda ka soo baxdo waxa la midaysan la jaraystay taasoo saas ku soo baxday oo balse hadda uu weli waxa wixii hore ka bedelan wali lama hayo marka isku haysiga iyo talaxooyinku iyo tafaraaruqa iyo maamulaha badan bay ka soo baxeen waad ma sidii garaad haddaan sii wadano su'aalihii waxay u muuqataa in gayiga dhulbaantay yahay dhul ay ku hirdamaan ama ay ku loolabaan siyaasadda Soomaaliland iyo Puntland iyadoo la isku adeegsanayo qoryahana la isugu dhiibay gayiga ama dadka dhulbaantay arrinta maxaa ka waran lahayd arrinta daanu hadii taladu tayda qulahay tahay waxaan oran lahaa yaala joojooyaan xabadna la isku riin dadku inuu isdiino aruuraha iyo weeshii isdiin baan anigu oran lahaa balse talaa sumidna gacanteena ku jirta ma aha oo dadkan isdilayo askaraha ahi laba meelood bay lacag kala qaataan ama saddexba nin walba waxaa la oranayaa haddii aad maamulkaaga difaacin lacagtii lagu siin maayo ama lacag malihida waa lagu egayaa sidaa darteed iska horimaadka keenaysa waa gartay garaad intii aan magaalada joogay dad aan ka kulanay ama aan wareysanay waxay inoo sheegeen in isimada dhulbaantay aan isu dhuwan daloolin aanina ka dhaxayn wada shaqayn arrinta maxaa ka jira arrinta waxaa ka jira horta guud ahaan anagu waxaanu isku qabanay isma ahaan xumaan ahoo anaga shakhsi ahaantayada la kala gashay ma jiraan balse haddii siyaasadi jirto waa ku jiraan ismadu haddii dadku kala qaybsigaasay ku jiraan haddii taana waxaa keenaya dadkaa siyaasadaha ku kala jira oo shacabka qaarkiisa nin wala wuxuu doonayaa meeshuu isagu ku jiro maamulku isagu ku jiro in ninka isimka inuu ku raaco buu jecel yahay marka sidaa darteed annagaba aad iyo aad u keni adagoo haddii alla ku warayay meeshaan doonaba aan raacayne sida dadku yeelayo badankiisu haddaanu raacayno isimana ma jira dadkuna waa horuba meesha ka bixi lahaa
inaan saa u keen adagna haba ku wada anigu haddii aan hadalkaasi tira garaad waxaad sheegtay inaad leedihiin wada shaqayn oo wax alqada dhexdiina oo haddaadtiin isimada haddaba haddii aad leedihiin wada shaqayn maxaa isugu dayay ama maxaa siyaasadda dhulbahantay gees ugu jecen weydeen mabda'ana ka midaysnay macnaha tanaan ku leeyahay waxba nala dhex yaaliin waxaanu isu qabanado xumaana waxaanu isu qabano xumaano shaksi ahaan abanaan isku hayne mabdu ma midaysna sidaa dadku firqooyin inu kala yahay baa isagoo firqooyin inu kala yahay waa masdi garaad su-aasha kale haddaan ku weydiiyo qof kasta oo ka mida bulshaweynta ku noqon gobolka sool waxa ay leeyihiin isimada ayaa ka dambeeya arrimahaas oo dhan arrintan maxaa ka hor lahay isimadu wixii xumaan oo dhan kama dambeeyaan wixii wax ku wanaagsanaanayaan baa horta loo doortay in iyagu had iyo goor ay dadka ku hogaamiyaan balse wacdi waliba dadkiisu leeyahayo dadkan maanta jooga oo meel loogu soo haagona aan la garanayn taladisuna aanay midaysnayn oo afarta qaaradood la kala soo tafaraaran ku jiro isimaduna kuwaasuma isimooyihin oo ka mid yihiin masdi garaad su-aasha kale haddaan ku weydiyo garaad isimada waxaa lagu ogaa inay ka taliyaan geed haddana waxaa muuqata inay isimadii galeen siyaasadda maxaa keenaya sababtaas taa waa lagu yaqaan oo haddaad nin weyn tahay waxaan ku oran lahaa intee jirtay hadda nin dhalinyaraa baa tahay waagii hore oo geedka laga talin jiray dhulkan dawlad buu lahaa dadkuna intan waa ka yaraa dadku wada siyaasi ma ahayn wada aftahan lama ahayn dadka wixii magaala ku jiraa wax yar bay ahaayeen hadda dadkii sakiirow kabiir rag iyo dumar magaaluu wada galay kan geela la jooga iyo kan jaamacadaha ka baxay midooda wuxuu leeyahay anigaa wax aqaan marka sidaasay ku suuroobi weyday dadku dalkuna waa fawdo marka matalan anigoo kale ka soo qaad haddaan dhulkeennaa iska joogo oo aanan magaalooyinka iman ama laascaanood iman dee wax ka xun baa kasoo bixi lahaa marka haddana ad gees iska fadhiisato wixii lagu keeno aada sugto waktigu waa saamixi maayo ugu dambayntii maxaad usoo jeedinaysaa dadka u dhashay gobolka sool ee ku noqon waddanka daafihiisa kala duwan dadka horta waxaan usoo jeedin lahaa anigu haddaan isla hadar waa lagula yaabayaa waxaana lama yeesheen sababtay ku tahay waxa weeye dhulka burbur baa ka dhacay sanadii 11 baa lagu jiraa in dadka iyo dalkuba ciirsan yihiin way ogaayeen ilaahay ka sokow marka ragga dibadaha jiro jaareelaha ku kala jiro lacagta iska qaadanayo dhulbahanto oo ama qaxoontiha ku tago markii hore ka shaqayn jiray dhulka wuxuu kaga tegay ogaa ama say hadda xaaladdu ku sugan tahay iyagoo in 10 xabadood dhulbahante iyo dalkiisa kuwa afka kusoo soo og yahay mar haddana waxtarna idinka hayn waxaad noo sheegtaan oo siyaasadoo aad tiraasada kaga gudbi kartaan sidaa yeelana aan lahayn wixii aanu idin nirahnaa waa xub abeeso naxdin ma huro oo waa idinka aamusi kari weynaya ahmiyad idinma hayno waad maasantay garaad